الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد ورين كسوق الجرياش وهو رئيس الدولة عدالة علماء ملاحظ الشركة ذاها كسوق الجرياش بدهان سلام كبعدي وحن آيات مهد علينا يا قراءة بوجا ورنت عاوة إن حسوسية وحادي إنه أنفعية wax nolosheena saameyn gaar ku yeelanaya mawduuc waxa laga qorana waxa uu muhiimsan mawduucan caawa halkan lagu soo bandhigay maxaa yeelay waa wax saameyn ku yeelanaya nolosheena oo adduunkeena iyo aakhiradeennaba wax anfacaya dadkana qalbigooda in badan oo aan baraarujinaya marka waa wax mahad celinaya ustaadka runtiina qofku hadduu qalin qaato wax qoro oo uu baaris sameeyo wax badan oo khaladana uu sameeynaya wax badan oo saxana uu sameeynaya laakiin waxa muhiim ah in wixii uu soo qoray oo juhdiga uu geliyay la helo dad ka falceliya oo waxna ku dara waxna ka dhima innaguna insha Allah inaan kuwa noqono baan insha Allah rajaynayaa culimadana sida ay diinteenu sheegnay waa dhaxalkii ambiyadeenii weeye aynu ka soo gaaray ama aynu haddii ay ku ron yahay kala haray marka in culimadeena la weyneeyo kuwa wafaaday iyo kuwa noolba in taariikhdooda la ururiyo oo la weeleeyo oo wax laga reebo sida hadda la sheegay waa wax aad mawduuc fiican midda kale oo farxad gelinaysa waxa weeye intii dhawaanahan ahayd waxaan arkaynay buug la soo bandhigayo ama waxaan muuqata inaynu ka gudubnay taariikhdeennii hore oo ahayd Soomaalidu inay mataqaanaa dad hadla ama oral society ay tahay laakiin hadda aynu u gudubnay inay dadkii ku baraarugeen inay wax qoraaniin waxay doonaan ha qoraan waxaase muhiim ah qofku hadduu wax qorayo waqti iyo juhdi iyo wax badan buu bixinayaa kharash badan baa ka baxaya sidaa daraadeed cidda wax qoraysa waxaan tala ahaan ku siin lahaa in mawduuc la qorayo sida kan oo kale iyo kala mid uu noqdo oo wax umada anfacaya uu noqdo oo taariikh ka tagaya inta haddaan uga gudbo waqtiga aan soo koobaya waxaanu sidaynu ognahay waxaa runtii caawa aad ii soo jiitay magaca uu qaatay oo shamac ah Soomaaliga waxaan maleynayaa waynu garanaynaa kelmadda shamac waxay tahay ama luqad ahaanteena oo shamac marxaladda uu wax ka qoray iyo magaca say isu yeesheen baad ii soo jiitay oo culimadu waxa weeye waa shamac inoo baxaya weeye waxa la yiraahdaa macallimiintu ama macallimku ama culimadu waa shamac iftiimaya shamacuna waa aragnay markii mugdi lagu jiro waxa la ifsado weeye inta uu ifayana waynu ognahay waa muddo gaaban taas waxay muujinaysaa culimadu inay yihiin ama nolosha bini aadamkuba ay tahay wax kooban laakiin inta aysan demin ay tahay in wax laga reebo marka qoraagalan waa uga mahad celinayaa magacaas uu qaatay runtii inta haddaan ka gudnay in wax la akhriyo ama la qoro runtii wax sahlan maaha waa hawl u baahan juhdi culimadeennuna waxay halkaa ku gaareen dee waa juhdi ay dadka kala dheer yihiinna qof walba 9 bilood buu ku dhashay laakiin intii juhdi uu geliyo ba insha Allah magaciisuna uu waaraya ummadana waa anfacaya sida aynu ognahay ama la soo wariyo Sheikh Albani waxa la yiraahday wuxuu ahaa culimo rahimahullah oo ognahay inta badan taariikhda ama culimada markay wax laga qorayo waxa loo soo qaataa inuu yahay sheekh wax badan mataqaanaa laga qoray waxa la yiri wuxuu lahaan jiray meherad yar oo lagu iibiyo waxyaalaha saacadaha ama electronic wax la mid ah markii uu qutuliyamkiisa maalintaas uu helo wuxuu isku day jiray inuu xiro oo uu jihaysto inuu waxna qoro waxna akhriyo marka inagana saas oo kale aynu ka rabaa inaan waqtigeena qoondayno insha Allah oo akhriska aynu xoojino waqtigeena soo koobay intaasaan rabaa inaan ku soo gaabiyo anoo wasaaradii caawa ku jooga halkan waxaan rabaa inaan qaadno insha Allah 40 buug haddii Allah idmo aan ku dhiirigelino qoraaga haddii Allah idmo waan ka baxayaa waxaan ku wareejinayaa xiriiriyaha insha Allah waxaan maleynayaa inuu ugu dameeyo sir dawlahan ku soo dhaweeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin